السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قاليقا دمانتي وإذ السلامة ميلو البأدونك أكي جوكتانو وولاشين ومهارون إي مركاليتود بليز كنالكي قداكيش سبسكرايب لاكتو كومنتيغا ديرجلين تواحقينا ما أنت نوحا إنو وذا قصة لما قع بحضي قصة نينكي ديلي حاس كيسة حدنا اسكو دايه إنو قريو ولي وانا السنادو أديق 3 سنو oo dawladda marag habaabiye macala familiga gabadhi ay ka dhalatay wuxuu isku dayay inuu naagtiisi ay ka maqan tahay amal oo iska dhigo qisada marka sidan ayay noogu bilaabanaysaa waxaa jiray nin iyo naag way isjeclaadeen sida normalka ah way isguursadeen markay isguursadeen wax yar kadib ilaahay wuxuu siiyay 4 caruur ah 4 caruurta ayagoo haystaana marka hooyadii wayna shaqeey jirtay haafna way shaqeey jirtay haafna ilmaheedii haysan jirtay aabaha laakiin shaqo fuul oo shaqeynayay hooyada marka meesha ka shaqeyso asxaabtii dhan isku fiicnaadeen markay isku fiicnaadeen niman iyo naago kulli way isku fiicnaadeen way soo wici jireen way la soo xiriiri jireen ninkii marka wuxuu bilaabay maseer meerkaas waa markuu gurigooda buuq ku bilaabanayo inta ka hor farxad iyo jaceyl lagu noolay buuqa bilaawday iyo maseer iyo soo wacay iyo qof kula hadlay iyo muxuu ku sheegay iyo sheekadii ninka soo wado oo markii dambe wuxuu bilaabay telefonkeeda inuu baaro telefonkeeda soo u baarayay maalmaha kamid ah subax alasay ah sida normalka ah ilmaha way ka soo horkici jirtay iyo asagaba inay kacday ee muskush iska gashay ayadoo muskush ku jirto iska qabaysanayso iska cadaysanayso telefonkeeda soo dhacay message soo dhacay marka dhiq oo maqlay oo ordi oo fiiriyo marka message-ka sida normalka ah hadda telefonka xataa binkood ku xiran yahay kor waa ka arki kartaa telefonkii marka woo arkay waxa la dhahay ma ka soo kacday hurdada mase wali waa jiiftaa waxa dhahayna waa nin woo maseera marka ninka markaas waa maskaxiisa dhimir ugu dambeysay naagta markay masuusha kusoo baxday yaa waa ninkan kula soo hadlooy markaas waxay tiraahdaa waa isla shaqeynaa nina isla shaqeyna normal waaye maxay ahaayeen shaqaalo ka mid yahay saas waaye way buuqeen qaylada si u qaylina marka dambe waxay sheekadu waxay tagtay gacan ka qaad naagtii uu dilay marka asoo dilaayo meeshan halkaas oo jeegada ah waxay ku dhubsatay meesha miis yaal ay ku dhubsatay markay ku dhubsatay way dhimatay markii ay dhimatay markaas waxa ugu jiray marka dharkii oo bijaamada ahay guriga maxay ahaayeen ku jiftay kadib dharkii uu ka siibay markuu ka siibay bacda qashinka uu ku riday bacda qashinka markuu ku riday woo qaaday woo la orday intaas ilmihii way hurdooyaan woo qaaday woo la orday wabi oo kusoo dhex riday marka meel wabi oo kusoo dhex riday waa uga soo tagay marka uu uga soo tagay wuu fakara marka intuu ilmihii diyaarinayo wuxuu siri ila qof dhan oo nool oo dilay ma aho see arinta ugu bixi kartaa naagta aad jecleeda gacantaada ku dishay see ugu bixi kartaa wuu fakaray naagta hooyadeeda wacay wuxuu ku yiri hooyo hee saacadan eelan ma joogto marka naagta magaceeda eelan la dhahaa ninkana Mikeela la dhahaa hooyo hee eelan ma joogtee maxay ahaayeen ma aragtay ma ku imaatay maya ma arkin hooyo waa la ahay maanta ilmihii kaligeena diyaarinaa shaqadina aad rabaa mi caawin kartaa ilmihii diyaariyay sida normalka hooyada marka iskoolka ka soo wadi jirtay asaga shaqadiisa kuule ahayd ayeeydi oo hooyada dhashay oo ka bariyay in ilmaha u soo wado ilmihii soo wado waa la ahay waa la raadsi markii laba maalin la laayahay oo wuxuu u tagay televisionka marka qayb waxa jirto oo qafka ka dhumay oo loo raadiyo meeshii marka imaaday wuxuu ku yiri naagteeda iga maqan hal ila raadiyo waa la raadiyaa markaas waxa leeyahay naagtaada maxaa ku dhihi leed eray macaan maxaa ku dhihi leed markaas wuxuu leeyahay xaaskaygii waa ku jeclahay soo laabo ilmahaaga ku baahan maxay ahaayeen gurigaaga ku soo laabo saas uu dhahay adiga soo sheekada u wada sheekada way sii dheeraatay dadkii shacabkii la shaqeynayo ninka ilaa nin jecel hay amal isku dhigayaan shacabkii la shaqeynaa maalmaha kamid ah magaalo marka magaalada oo qisada ka dhacday Italy waaye magaalo Turin la dhaho waxa joogta naag wax yar shabahdo naagti nina marka la socdo metro way raacdaa marka metroga ay raacdaa la soo sheegay lambarka oo yahay saacada ay raacdo inay ka tagtay naagtaas inay nin ka raacday adiga gabadhi dhimatay dhan ceebo suuq u galiyay sida qasida loo waday markay 3 sano socotay maalmaha kamid ah wabiga la nadiifinayo ayadoo wabiga la nadiifinayo lafa bil aadan laga soo baxshay lafi hadii la fiiriyo xawayaan ma qof bil aadan nool waaye lafiya baaritaan loo diray waa la soo baaray waxa la soo ogaaday naagtaas la laayo la dhahaa inay tahay waliba dhimatay xilliga la raadinayo ka hor inay dhimatay
ninkii la soo qabtay maxkamadda la soo saaray waxaa la yiri naagta adima dishay anima dilin diid wuxuu maagay inuu dhasar caasho kadib ileen telekamera meel walba ku xiran telekamera alshaan kamera meel walba ku xiran kaamiradi kaamirooyinka soo qabteen xilligo guri ka baxay xilligo meesha wabiga agteeda baaburku ku baakintay wixii oo la soo helay sidii marka asiga xabsi daa'im ku mutaystay ilmihiin hadda ayeeyadooda hayso oo hooyadii dhashay ilmihiin hooyo la'aan iyo aab la'aan ku dhacday qisadan maxaa fikirkaaga ka dhiibo ani ahaanteeda ninka aad u qaldanaay wuxuu sameyn karaa inuu ka tago ama hadduu maseer badan yahay oo maseerkiisa oo maxay ahaayeen control isku sameeyo ama hadduu naagtan ka shaki inuu iskaga tago adduunkan waa weyn yahay laakiin inuu dilo nafsada dhaafsiiye ma ahaynin marka adiga fikradaada kasoo dhiibay qisada kanaalkayga haddaa ku cusubtaana subscribe laagta commentiga iyo sheerta viewskan insha allah igu caawiya kanaalkayga xoogaa dhanka viewska ka liitaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.